wardeg dagooyinkana soo gaadhay ugu yaraan 20 muhaajiriin Soomaaliyeed ayaa geeriyooday iyagoo isku dayay inay gudbaan badda Mediterranean-ka una socda jasiiradda Palma ee dalka Spain sida laga soo xigtay dadkii badbaaday. Doonta oo sideen ka badan 20 ruux ayaa la helay kadib markii maalmo badan badda guudkeeda ay sabeeynaysa inta badan dadka ku dhintay waxay ahaayeen dhalinyaro ka soo jeeda Puntland, Soomaaliya, kuwaas oo ka cararayay shaqo la'aanta baahsan iyo fursad la'aanta ka jirta dalkooda hooyo. Sanadihii u dambeeyeen waxaa si weyn u kordhay muhaajiriinta sharci darrada ah ee ka imanaya Soomaaliya, taas oo sabab u ah dhibaatooyin dhaqaale oo daba dheeraada iyo rajo xumo ka jirta dalkooda. Dhacdada naxdinta lehna waxa ay xigtay mid kale oo dhawaan ka dhacday badweynta Hindiya agaarka jasiiradda Madagascar, halkaas oo 24 muhaajiriin Soomaali ahi ay ku naf waayeen. تهريبتيو دالنتيد كلا بلومي